shirkadda Home Petroleum oo ka mid ah hormoodka shirkadaha shidaalka ee gobolka ayaa maanta dekada Berbera keentay markabkii ugu weynaa ee shidaal sida ee abid ku soo xidhay dekada. Markabkan oo sida ku dhawaad 50,000 oo mitir cubic oo shidaal ah ayaa qayb ka dadaalka shirkaddu ay ugu jirto daboolidda baahida shidaalka gudaha iyo gobolka loona xoojin lahaa doorka Berbera ay ku leedahay ganacsiga istiraatiijiga ah ee Geeska Afrika. munaasabad ballaaran oo lagu qabtay xarunta East Africa Storage Terminal ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka Saaxil, maamulka degmada Berbera, maamulka sare ee Dahabshiil Group oo ugu horeeya Cabdirashiid Ducaale, xubno ka tirsan golaha deegaanka Berbera, laamaha ammaanka iyo marti sharaf kale oo qiimo badan. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha Home Petroleum Mahad, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa had iyo gooraale marka wax horumari inoo soo kordho guud ahaan waa inaynu soo dhaweynaa waa inaynu hambalyeynaa. markabkani waa markabkii ugu horeeyay ee yimaada ee sida shidaal inta leh 50,000 oo mitir cubic wax ku dhow ayaanu sidaa. waa taariikh cusub, waa waa cusub oo inoo bariyay haddaynu nahay bahda shidaalka iyo haddii aynu nahay cid kasta oo si uun uga shaqaysa, hadday tahay terminaalada hoos gareeya, dadka jeegareeya, bulshada ka shaqaysta. marka taasa aynu tahay inaynu dhammaanteen wada hambalyeyno. wax weyn ayuu bedeli doonaa ilaahay idamkii. dhanka kale maarayaha guud ee shirkadaha Dahabshiil Group Cabdirashiid Ducaale oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in Dahabshiil ay ka go'an tahay horumarinta dalka iyo dadka. Assalaamu calaykum dhammaantiin waan idinka mahad celinayaa inaad ka soo qayb qaadateen kulankan. waan u mahad celinayaa dhammaan qof walba ka shaqeeyay inay suurto gashay xafladan maanta isugu nimid. waxaan kaloo si gaar ah ugu mahad celinayaa gudoomiyaha shirkadda Xaaji Maxamed Saciid oo isna afkaartiisa iyo taladiisu ay qayb ka tahay maanta mashruucan inuu joogno. waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta Berbera ay noqotay dekadii wadankeena ku taala ee uu ku soo xidhmo markabkii ugu weynaa ee shidaalkeena. tan oo ah mid taariikhi ah, mid fursad badan u dhalinaysa dadkeena, mid gobol kale aynu ku noolahay uu gaarsiin doono shidaalkaas, ama ha noqoto dhulka Soomaalida ama wadanka kale aynu jaar ka nahay ha noqoto. waxaynu ognahay inuu shidaalku ka mid yahay waxyaalaha horumariya nolosha, ama ha noqoto xagga leydhka, ama ha noqoto wax soo saarka, ama ha noqoto dhinac walba oo nolosha la xidhiidha. shidaalku wuxuu horumariyaa ummadda dhinac walba. maantana markab ka yimi wuxuu ka qayb qaadanayaa horumarkaas aynu doonayno inaynu gaadhno. waxaa qayb ka qaatay imaatikiisa ama inuu maanta inoo suurto galay dad badan oo kala duwan, shirkado caalami ah. shirkadda Home waa shirkad la shaqaysa dhammaan ganacsadaha kala duwan ee wadanka ku yaala. waxaanu rajaynaynaa in shidaalkan uu noqdo halkii marba maraakiib iman jireen in kan iyo mid ka sii weyn la soo iibsado oo ay ganacsatada u suurto geliso inaanay socdaal dheer gelin oo ay shidaal dabadda uga soo iibsadaan. waxaa kaloo qayb ka ah qaybta terminalka oo iyadana madaxdeedii halkan ay joogto. intuba waxay muujinaysaa markaynu wadankeena aamino, dhaqaalaheena gelino, shaqo ka abuuro, in horumarka wadankeenu sii korayo, isla markaana ay dhiiri gelinayso in dad badan ay wadankeena aaminaan. haddaynaan wadankeena aaminin cid aaminaysaa ma jirto. haddaynaan lacagteena haysa wadanka aynaan gelinna cid kaloo gelinaysaana ma jirto. taasna waxaa ka markhaati ah maalgashiga iyo shaqooyinka badan ee Dahabshiil Group iyo shirkadaha la midka ay wadankooda ay geliyaan. sidoo kale maamulka gobolka Saaxil ka degmada Berbera, maarayaha dekada iyo macaamiil ka mid ah shirkadda Home Petroleum oo munaasabada ka hadlay ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa. aan halkan uga mahadnaqayaa shirkadda Dahabshiil Group amaba Home Petroleum oo barnaamij horumar iyo qiimo weyn u leh dhaqaalaha wadanka inoo soo kordhisay. waxa ay suuro geliyeen oo ay keeneen markabkii ugu weynaa abid ee shidaalkeena wadanka. inta badan maraakiibta shidaalka inoo keenaa waxa ay u badnaayeen maraakiib 5 jeer ka yar markabka maanta inala jooga. qiyaastii 7,000 ilaa 10,000 oo mitir tan
ayay u badan yihiin maraakiibta inoo yimaadee batroolka iyo gaaska iyo saliidda iyo waxyaabaha keenaa halka maanta markabka inala jooga ee aanu soo xidhnay shidaalkii iyo dieselkii uu sideyna laga shubay uu sido in ka badan 50,000 oo metric ton waxaad halkaa ka arkaysaa in uu 5 jeer laabmay quantity-gii hore inoogu iman jiray waxa aan leeyahay oo aan u soo jeedinayaa ganacsatada faraha badan ee waddanka jooga ee dhaqaalaha faraha badan haya inay ku daydaan ganacsatada sameeyay kay dadka kala duwan ee haamaha shidaalka ee dahabshiil group u horeeyo dhaqaalaha waddanka geliyaan shaqo inoo abuuraan kobcii iyo horumarkii dhaqaale ee uu dalku sameynayay si ay kaalintooda u qaataan. Today we have assembled to recognize a milestone, but before I do that, let me congratulate everyone today who's gathered here, including the senior dignitaries of Horn Africa, the team behind it, respected senior government officials, and my dear friends and colleagues. As they always say, the bigger the better, and in the shipping industry, this really holds very true to it. runtii sharaf bay noo tahay inaynu maanta halkan isugu nimi oo aynu milestone-kiisa u joogno oo ay tahay guushii ugu ballaarneed ee Somaliland u soo hoyata gaar ahaana shirkadda Dahabshiil Group laanteeda Horn Petroleum oo inoo keentay maanta markabkii ugu weynaa ee Somaliland ku soo xidha oo runtii inoo soo jiidi doona sumcad kolley shirkadda Berbera ka socda anigu laakiin shirkadihii leelkee dawladda ku nooga joogaan waana ku faraxsanahay in markab intaasoo shidaal sida uu yimaado runtii shirkadda Dahabshiil waa shirkadda ugu weyn ee waddankeena maalgelin ka samaysa dhaqaale fara badan gelisa halkii shirkadaha kale dibadda ay ka geynayaan dhalinyaradeena aan u malaynayo dhalinyarada inta ugu badan ee Somaliland inay ka shaqo gasho shirkadaha Dahabshiil ee kala duwan ilaahay baa mahadda iskale maanta waa maalin weyn waxaynu maanta u fadhinaa markabkii ugu weynaa ee yimaada xeebaha Somaliland ama ku soo xidha terminaalada shidaalka ee dalka Somaliland waxay qaranka u tahay in ay wax badan ka bedeli doonto duruufta shidaal ee dalka runtii waan ku dhiirigelinayaa qaran ahaana waanu ku faraxsanahay shirkadda Dahabshiil inay kaalinta qaadato oo maanta xeebteena u yimaado markabkaasi waxa hore u iman jiray dalka maraakiib intan ka yar markabkii u weynaa ee yimaada 60,000 oo foosto qaaday laakiin maanta kani aad buu u weeyaa waxaan runtii dhiirigelinaynaa dawlad ahaan iyo hay'ad ahaanba sidii infrastructure-ka iyo maalgashiga weyn ee shirkaduhu ay gashadeen dalka ee haamaha shidaalka ee dalka laga sameeyay loogu heli lahaa suuq dibadda ah oo aan ahayn kan Somaliland wadamada jaarkana loo gaarsiin lahaa inaynu ka ganacsano shidaalka iyo enerjiga Somaliland ay noqoto hab isku xidha wadamada geeska iyo gobolka weyn ee jaarka nahay Ethiopia si aynu inaguna dalahaan uga helno dhaqaale shaqo abuur iyo waxa weeye aynu dalkeena loo gaarsiin karno adeegyada aynu bixin karna khayraadkeena annagu haddaan nahay golihii deegaankii degmada Berbera ama maamulkii degmada waxa farxad noo ah oo aanan anagu farxadayda soo koobi karin markabka maaha investmentka iyo hantida ay reer Dahabshiil ku aamineen ay gashadeen magaalada Berbera aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxay dhiirigelinayaan way dhiirigeliyeen qof kastoo muwaadin inuu arko hantida intaa leeg marka uu qofkani gashanayo inuu isaguna intaa leeg u gelin karo marka dhammaan ganacsatada reer Somaliland oo dhan waxaan aad ugu mahadnaqaynaa inay magaaladoodii iyo dalkoodii iyo dadkoodiiba ay maalgashi muuqda ay ku sameeyeen markabkii aynu maanta ugu weynaa ee abid Somaliland ku soo xidha inaynu halkan maanta ugu gogol xaadhayno ama aynu ugu walqalayno anagoo ku hadlaya magacii gobolka ama xukuumadda ee heer gobol waxaan u hambalyeeynaa shirkadda Dahabshiil Group oo dalka maalgashi badan ku samaystay
oo uu ka mid yahay kaa maanta aynu joogno haddaynu tirino ka gayoon mayno horumarka ay dalka gelisay shirkadda dahabshiil group laakiin waxaynu ka hadlaynaa kaa maanta u dambeeya waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo xukuumad ahaanna waan idinku hambalyeynaynaa inaad keentaan markabkaa mugga weyn leh ee maanta dalka iyo dadkeennaba magaca weyn u soo kordhinaya